tobankii sano ee Soomaaliland ay jirtay waxay soo martay marxalado kala duwan kuwaasi oo sababaya in la gaaro horumar dhaqaale taasina waxay suuro gelinaysay in guud ahaan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland laga bineeyo dhismayaal noocyo kala duwan leh laakiin guud ahaan agabka dhismayaashaasi galaya waxay ahaayeen kuwa laga soo dhoofiyo dalka dibadiisa laakiin sanadkii 2016 waxa la aasaasay warshada lagu magacaabo National Steel Industry oo ku taala magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil agabka dhismayaashu ay ka mid yihiin jiingadaha iyo masaabiirta ayay warshada National Steel oo ku taala magaalada Berbera ay ku samaysay gudaha wadanka wax soo saarkani waxa uu meesha ka saaray baahidii badnayd ee ka jirtay suuqyada kala duwan ee dhismaha ee Soomaaliland horta warshada waxa la aasaasay 2016 waxaana loo aasaasay in ay samayso wax soo saar gudeed oo wadanka gudihiisa shirkadu waxay soo saartaa waa jiingada oo noocyo kala duwan leh oo ku saabsan xagga qaradeeda iyo masaabiirta waxa kale oo soo saartaa one time use ka baalkan raaya lagu isticmaalo hodheelada ee lagu rido maxaa la yiraahdaa cuntada lagu rido waxa kale oo ay u talowdaa suuqyada maartay Itoobiya oo ah suuqeena ugu weyn ee labaad ee marka wadankeena laga tago waxa kale oo shaqo boorada shaqaale badan oo ilaa 100 ayaa markaa ka shaqeeya oo shaqaalaha ka howlgala ah daawadayaal agabkan aan gacanta ku hayo waa mid si weyn looga isticmaalo guud ahaan suuqyada kala duwan ee Soomaaliland dadku waxay ku qaataan cuntada iyagoo siyaabo kala duwan loogu isticmaalo markii hore waxa laga soo dhoofin jiray dalka dibadiisa laakiin haatan waxa lagu sameeyay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Berbera Somaliland Foil waxay ka mid tahay warshadaha wax soo saarkooda lagu reeyay waxaana ay soo saartaa maacuunta cuntada lagu qaato ama safaariga oo inta badan laga keeni jiray dalka dibadiisa Shonland Industry iyana waxay ka mid tahay warshadaha soo saara jiingada waxaana ay ku taala magaalada Hargeysa ee Somaliland caasimadda waa iyagoo iskaashanaya warshadahani waxay buuxiyeen baahidii suuqa taalay ee loo qabay in agabkani laga keeno dalka dibadiisa shirkadda dhismaha iyo guriyeynta ee Kaabsan waxay samaysaa shubka iyo jaajuurka taasi oo loogu talagalay dhismayaasha dhaadheer waxaana ay u adeegtaa dhammaan dhismayaasha laga hirgelinayo magaalada Hargeysa waxaana mustaqbalka dhow hiigsanaysaa inay gaadho dhammaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland waxaan uga qayb qaadanay 3 shay koow horta marka meel la dhisayo berigii hore wadooyinka waa la xidhi jiray wadooyinka dhexdoodaaba sibir lagu qasi jiray hadda sibirkii diyaarsan baa la geeyaa horta xagga way fududaysay waxay kala fududaysay dadku hadda dhulkii bay ka faa'iideysanayaan berigii hore 2 dabaq ama 3 dabaq kaliya la shubi jiray hadda waxa laga yaabaa guri 30 dabaq 20 dabaq in lagu shubi karo taasina waxay keenaysaa in city-ga ama waxa la yiraahdo magaaladu gudaheedu uu qurux badnaado oo waad aragtay hadda madxafka oo kale waad aragtay annaga shubnay waxa hadda dhul dhismaha ka socdo oo dhan magaalada inta 90% waa warshada kaliya hadda shubta waa Kaabsan Daryeel waxay ka mid tahay shirkadaha guunka ee ku yaala gudaha Soomaaliland qaybteeda warshadu waxay soo saartaa agabyada lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada waxaana ka mid ah jikooyinka albaabada qalabka xafiisyada iyo agabyo kale oo dhamaantood ka qayb qaadanaya qurxinta guryaha Somaliland waxyaabaha uu dhulkeedu hodanka ku yahay waxa ka mid ah dhagaxa laga sameeyo rinjiga haddaba warshada Fortune oo fadhigeedu uu yahay magaalada Hargeysa waxa ay ka mid tahay warshadaha ka faa'iideystay fursadaasi waxaana ay soo saartaa rinjiga iyo istambarka taasi oo dabooshay baahidii loo qabay in rinjigan laga keeno dalka dibadiisa warshadan waxa maalgeliyay muwaadiniin reer Somaliland oo hantidooda dhulka ku aaminay waxweeyaan waxa ay soo saar waxweeyaan rinjiga maxay tooy istambarka waxay tooy ronox wax la yiraahdo stuuko marka la sugeeyo waxa guri lagu qurxiyo oo dhan gudo iyo dibadba waa sameynaa waxweeyaan marka maxay tooy laba nooc oo qabsamaya waxweeyaan rinjiga waa ka waxa la yiraahdo oil base kala yiraahdo ama saliitiga ama zeyt asmaadu taado من وحوين كلاه وحوين ووتر بيس بالله وحوين استبق كلاه ويان وعصور عك شيء كده